السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo noqod wanaagsan. Maanta waxaynu bilaabaynaa casharkeenii lixaad. Waxaynu ku baran doonaa casharkan sida loo sameeyo sample design ama roll up banner sida loo sameeyo. Roll up bannerku waa mid kamid ah muxuu ahaay designada. Waa mid kamid ah boorarka markaa weliba loo qaato xafladaha iyo meheradaha la dhex dhigto bannerada yar dhexdaa. Roll up bannerka halkan inooga muuqda inaan samayn doonaa markaa. Waxaynu samayn doonaa bannerka halkan inooga muuqda. Marka waxaan u wareysin doonaa si caadi ahayd cabirka markaa waxaan ku sheegi doonaa cabiradeenii roll up banner cabirkiisu waa 179 inta baan soo koobisanaya file baan imanayaa dabeetana new baan leeyahay halkaa waa pixel weeye widthka markaa aan fast gareeyo kan waxa weeye waa heightka weeye widthkana aan soo eego widthkan waxaan leenahay 179 waxaan markaa portrait deetana create baan leenahay haddana zero baan leeyahay markaasaan soo hirdhaweeyo marka waxaan ka bilaabi doonaa shapeska ugu horreyn ka bilaabana paint tool baan isticmaali doonaa waxaan leenahay paint toolkan tegaynaa leenahay click baan leenahay click baan halkaa haddana click angle yar baan samayn doonaa marka casaankaasaan siin doonaa ready soo yarweynsiinaya angle-ka markaa laba angle baa isku daba jira labaadna aan sameeyo laftarkiisa iyo koobiye laftarkiisa control iyo baan leeyahay control iyo check in koobiyeysma control check iyo koobiyeysma markaa kan ka dil doonaa aan leeyahay kan waxa fiisa madow madowgana labadan layer marka waan kala sareysiiya asaanka soo sareysiiya baan leeyahay halkan asaanka dib yara dhig madowgu soo yar baxo intaa okay baan leeyahay waayahay halkan goobada saddexdan goob ayaan doonaa markaa aan leeyahay shape toolka aan dooranaya shape tool ayaan qabanaya si toosan goobada markaa aan samaysiina sidoo kale aan saxna xirnaan ilaa markaan doorto waan soo qaadayaa hebel ayaa wax soo qaadi doona marka goobo meelahaas alegsiin doonaa roganon baan leeyahay dhigi doonaa halkan control j baan leeyahay goobada laftirkeedan koobiinaya control j ana control t halkan ka bedeli doonaa yareeyo halkan ka bedelayaa laftirkeedan wax ka dhigi doonaa madow baan leeyahay halkan madow ka dhig markaan sameeyo waxaan tegi doonaa goobada saddexaad sidan goobo yar baan ka dhigi doonaa markaa tani koobiye control j aan yareyn doonaa control t halkaas dhex electrical baan u yaala marka sawirkan soo gelin doona electricalka ugu dambeeya baan joogaa baan tegayaa input baan leeyahay sawir baan soo qaadaya marka sawirkan waa kan yareeyo aan leekisiiya marka markaan idhaahdo waxaan u tegayaa sawirka geedkii baan leeyahay soo yarweynaysiinaya halkaan markaa sawirka baa iga dhamaaday waxaan gudbi doonaa markaa qaybaha kale qoraalkan baynu qori doonaa qolo walba sina solutionkan markaa tape toolka tag ana click waxaan ku qori doonaa global
bartana marka waan soo bedelayaa bartan ka dhigi doonaa waan soo yarweynsiinayaa laba bartana madow baan ka dhigaa marka madow ayaan leeyahay labada marka saa u dhigto iyada lafteeda kobiyana control J ay soo dhig rabusina soo joog ku qoraya markaan bedelo marka casaan ka dhigo waan leeyahay way ii kobiya iyada lafteeda control J ku qoray markaa solution madow baan ka dhigaa markaa solutions control T oo yara yareynaya marka intaa markaan sameeyo ayaa waan isku select garaynaya saddexdooda halkaasaan dhigayaa kana gudbaya markaa qaybihii ugu dambeeyey soo qaadi doonaa shibkan baan noo samayn doonaa markaa shibkaasaan u sameeyo angle ii soo qaad angle xagaa dhig kalarkiisa markaan ka bedelo control waxaan leeyahay markaa T and right click baan leeyahay waa markaan leeyahay markaa halkan hoos soo jeedi doonaa intaan hoos soo jeedo ama hoos soo yara jeedi doonaa waxaan soo jeedaya aan ku durkaya markaa okay baan leh intaa markaan sameeyo waxaan gudbayaa markaa qoraalada inaan yareeyo control T hal mar hadda doonaysa inaad isku select garaysid waxaan leenahay left click ku jeedi doonaa control T baan raacinaa qayb sare naga raaca qaawin gareeba qayb sare control T waan yareynaya aan dhigayaa qoraaladii kale markaa dhigi doonaa oobada yar baan soo jeedi doonaa marka casaankaan siin doonaa waan koobinaya control J ilaa halka marka saa ugu daayo qoraalka markaa ku qorayo waxaan leeyahay save toolkan tegayaa qoraalada baan soo jeedayaa waan bedelayaa waan yareynayaa kalarka marka wax ka dhigaya madow intaa markaan sameeyo control J baan leeyahay waan koobinaya markaan qabto dhexdhexaad baan ka dhigaya control J markaan sameeyo waan gudbi doonaa markaa rectangle-ada yar baan gudbayaa jiidadka dhexda waxaan leeyahay save iska rectangle yar xagga ku jiid rectangle yar markaa tarisad angle waan yareeyaa markaa control plus ayaan inta soo rogayno yar markaa waan sameeyaa halkaas aan ka siinayaa dhigi doonaa markaa layerska angle dushiisaan tegayaa angle ii doona dushiisa then right click slice layer baan leeyahay doonaya markaan sameeyo soo qaadaya gobolada control X baan leeyahay angle waan soo qaadaya control X meesha looga saaro control X waayahay intaan markaa sameeyo markaa waan koobinaya angle control J soo qaad hoos soo dhig dhammaan inta isku wada select garee control T intaa markaan sameyno waxaan guddoonaa qaybtii ugu dambeysay ee contactiska markaasaan samayn doonaa imkana marka qoraal baynu soo qaadanaa balaan ku noqday control J duska waan raaca markaa control sar noqonaysaa qoraal baan u baahanaya qoraal keliya control J baan leeyahay waan soo dhiganayaa qoraalka markaa shaybka way kala hooseeyaan qoraalkan u imanaya deetana kor baan u qaadaya ugu sareyn karigaa marka karigeeda ugu sareeya
soo qaad double click kalarka bedel marka contactkaas waan furayaa control T ama yareeyo taasaan dhiganaya waay intaa marka sameeyo lamaraantan iyo iconska baa inoo haray dhigi doonaa markaa file input soo qaadi doonaa markaa iconska soo qaadaya icons waa kuwan background bay wataan backgroundka ka jarnaa backgroundka caddaanka bay wataan dhigayaa eraser toolka aan kasii dooranaya image eraser tool dhig baan leeyahay marka backgroundka ka saari doonaa backgroundka inooga baxay control T si aan u yarayno qaad markaas soo dhigaya kolka iconka inoo horeysana file baan tegayaa place input marka iconka waa kan isaguna background ku leysana background ka jarana ka jarana control T si aan u yarayno xaggaas aynu soo dhigana intaa marka sameyno qoraalka soo iman doonaa control J baynu kobiyana lambarkii baynu ku qoran lambarkiina waa kaa way hadisankan intaas inuu samaysan yahay marka iiba waxa inaga khaldameen oo labada mar hoos maray labada markaa samayn doona iyaga waan iska hormarinayaa oo hal mar dooranayaa labada rectangle ayaan ugu hoossiinaya marka control shift iyo markaa soo wada qaad